سورة التين سورة ومكية آية واسديد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والتين تين كايان كدارنيا والزيتون يزيتون كايان كدارنيا وطور سينين بور تليراد طور سيناء أيان كدارنيا وهذا البلد بلد كان أيان كدارنيا بلدك الأمين أمانك لها إلهي جل وعلا وحوليه والتين تين كايان كدارنيا والزيتون زيتون كايان كدارنيا لبداس إلهي وحوق دارنيا barakay leeyihiin manfacadoodi ayaa fara badan daawaana ku sugan qofka inuu aad u isticmaalo hadii uu heli karo tiinkaas iyo zaytuunkaas liideedi ama miraheedi naftirkeedi inuu isticmaalo tiinka badi wuxuu ka soo baxaa dhinacan Dimashq Suuriya culayskay kurbaday dhawaatada Allah ka faydo Suuriya ayaa ka soo baxa dhulka barakaysan zaytuunkana badi wuxuu ka soo baxaa Baytul Maqdis marka labada sayti qofka inuu aad u joogteeyo ayaa fiican haduu baheli karo waa laba shay baraka badan daawana ku jiro wa tuur siniin buurta la yiraahdo tuur siniin ayaan ku dhaaranaya waa buurtii Ilaahi uu kula hadlay Nabi Muuse alayhi salaam waa buurtii Ilaahi Nabi Muuse uu kula hadlay وهذا البلد بلد كان ayaan ku dhaaranaya beledkii al-amiin amaanka laha بلد كاسوا مكة المكرمة زادها الله شرفا وتعظيما قفكي قال بلد الحرام أما مكة وآمن أيويه آمن أيويه واتن إلهي ويري أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم حرم كوحان كيالي ميانا كيال حرم كمت آمن وهو نبت جلياء dadka xarabka hareerihiisa deganne waa la afduubanaya waa la dafaya waa la dhacaya wahaakada laakiin dadka xarabka dhex degan amni bay ku jiraan marka amniga waxa weeyaan waa nicmo aad iyo aad u weyn ay ka mid tahay nicmooyinka Ilaahay uu bixiyo amni hadaan jirin xataa Ilaahay ma caabudi kartid asxaabta iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam asxaabtiisa markii Makka ay joogeen inteena muslimiinta xoog yeelan gaalada awoodooda markuu taaknaa muslimiinta waa tii la dhibi jiray la cadaadi jiray la caburi jiray xataa iyagoo cibaadeysanay lama arki jirin cibaadadooda la dhuudhuumanayeen salaadooda la dhuudhuumanayeen qofka xataa Ilaahay ma caabudi kara haduusan haysan nabadgelyada marka waa ahamu shay'in weeyaan walidaalika Ilaahi jalla wa ala Quraysh ayaa wuxuu ku manaystay amni suuratu Quraysh liilaafi Quraysh إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف من خوف عبسنا كنوجليي أمن سيجي أمان سيجي أمن أمانك وأهم شيء ويان عالمك وحوات وقددا ليا أمن أمان إنوهلو أمن أمان وحويا وحله لكرماه الله نسيجي وهذا البلد الأمين بلد كان أمين كهل أمانك له أيان كدارنيا لقد حقيقة خلقنا وان أورني الإنسان إنسان كأيان أورني في أحسن تقويم توسن مدعوانا بدن حال إسقو كسوغان أيان أورني لقد حقيقة خلقنا وان أورني الإنسان إنسان كأيان أورني في أحسن تقويم توسن mid ugu wanaaga badan xaal isagoo ku sugan ayaan abuurnay insaankan Ilaahi suu u toosiyay u wanaajiyay muuqaalada mid ugu fiicnaanshaha badan ayuu Ilaahi ka dhigay subhanahu wa ta'ala joogiisa waa mid toosan xubnihiisa isku munaasaba cilmi iyo fahmad ayaa lagu qurxiyay oo lagu ziineeyay aqli iyo wax kala soocid ayaa lagu qurxiyay inuu dhawaaqi karo hadalka wuxuu gudihiisa ku jira inuu cadeyn karo ayaa Ilaahi uu ku ziineeyay tabaaraka wa ta'ala muuqaal iyo toosin mid ugu fiicnaanta badan ayuu Ilaahi insaankan ku abuuray subhanahu wa ta'ala thumma kadib radadna waan celinayhu insaankii asfala saafiliina kuwa hooseeya kan ugu hooseynta badan ayaan ku celinay ثم كذب رددناه إنسانكي وان عليني أسفل سافلين كوه هوسية كان أقوه هوسين تبدن أيام كو عليني وبمعنى وامحي معنى وحويا
markii amarkii ilaahay uu qaadan waayey insaanka oo uu qalocday oo uu leexday isagoo sidaa loo maamuusay oo sidaa loo karaameeyey uu gaaloobay oo ilaahay ka furtay ilaahay ku kufriyey tabaaraka wa tacaala jahannama ayaa loo celiyey waa fii asfala saafiliin ama ma ahee asfala saafiliinada waxaa loola jeedaa ilaa ardali lcumri cumriga kan ugu liito ayaa loo sii celinayaa macnaha qof gaboobay oo isku dhex yaacay buu noqonayaa bacda an kaana shaaban qawiyan markuu ahaa ka bacdi mid xoog badan oo dhalinyaro ah ayaa kadib wuxuu noqonayaa mid haddana gaboobay oo duqoobay oo waayeel noqday wadacfi bacda alquwa xoogii uu lahaan jiray ka bacdi mid taag daran oo tabardare ayaa ku dhacayso wahaakada ila aladiina kuwii maahane aamanuu rumeeyey wacamiluu camal falay alصaalixaati camal yaalo wanaagsan camal falay kuwaasayti maahane falahum waxay leeyihiin kuwaas ajrun ajar bay leeyihiin ajarkoo gayru mamnuunin gayru maqtuucin mid la goynaayo aanan ahayn ajar aan kala go' lahayn oo jannadii ah bay leeyihiin famaa maxay baa yukadibuka mid beeniye kaa yeelay ayuha alinsaanu bacdu ay bacda hada albayaani alwaadixi caddaynkan ka bacdi biddiini bisababi inkaari ddiini diinta abaalmarinteedii diinta inkiraadeedii sababteedii mid beeniye maxaa kaa yeelay famaa maxay baa yukadibuka mid beeniye kaa yeelay ayuha alinsaan bacdu ay bacda hada albayaani alwaadixi caddaynkan ka bacdi biddiini bisababi inkaari ddiini diinta inkiraadeedii sababteedii mid beeniye maxaa kaa dhigay sidaan baa wax lagugu caddaynayaa sidaan baa wax lagugu bayaaminayaa mid beeniya maxaa kaa yeelay insaan yahow waayaabi alaysa allahu ilaahay miyuusan ahayn biaxkami alxaakimiina inta wax xukunta allah ugu xukun caadilsan ilaahay miyuusan ahayn bala ilaahay wuu yahay alaysa allahu ilaahay miyuusan ahayn biaxkami alxaakimiina inta wax xukunta allah ugu xukun caadilsan ilaahay miyuusan ahayn bala ilaahay wuu yahay nabiga sala allahu calayhi wasalam markuu aayaddan aqriyo balaa ayuu dhihi jiray balaa wa ana calaa dalika min ashaahidiin leanna waa wax baa lana weydiinayaa ilaahay miyuusan saas ahayn wuu yahay jawaabtaa lanaga rabaa anagan ilaahay miyuusan axkamu alxaakimiina ahayn wuu yahay ilaahay wuu yahay axkamu alxaakimiin subxaanahu wa tacaala wuu yahay axkamu alxaakimiin suuratu alcalaqi